Waxaa jira wiil yar oo suuqa alaabaha yaryar ku wareejiya. Wiilkii yaraa kobihii ayaa ka go'ay. Wuxuu isku dayay inuu kobaha samaysto, laakiin wuu awoodi kari waayay. Isagoo meel fadhiya ayuu arkay wiil wata kobo cusub oo aad u dhaldhalaalaya. Wuxuu jeclaystay inuu yeesho kobahaasoo kale. Wax yar kadib waxaa imaaday tariinkii. Wiilkii iyo aabbihii waxay damceen inay fuulaan tariinka. Albaabada tariinka waxay ahaayeen kuwo ciriiri ah. Wiilkii tariinka ayuu fuulay, balse waxaa si lama filaan ah uga dhacday labadiisa kobood mid ka mid ah. Tariinkiina wuu dhaqaaqay. Wiilkii wuxuu awoodi kari waayay inuu kobta soo qabsado. Waxaa arkay wiilkii faqiirkii ahaa oo u soo cararay, wuxuuna soo qaaday kobtii dhacday. Wuxuu dareemay inay waajib tahay inuu kobta u celiyo wiilkii ay ka dhacday, maxaa yeelay wiilku aad buu u jeclaa kobaha. Wuxuu bilaabay inuu tariinka ka daba cararo, laakiin wuxuu awoodi waayay inuu wiilka kabta gaarsiiyo. Waa uu u tuuray, balse way gaari weysay. Waxaa dhacday arrin lama filaan ah. Wiilkii tariinka saarnaa kabtii kale ayuu siibay, wuxuuna u soo tuuray wiilkii faqiirkii ahaa. Wuxuuna ku yidhi, qaado, adiga ayaa iska leh. Wiilkii arrinka uu sameeyey waxay ahayd arrin aad u fiican. Wiilkii faqiirka ahna wuxuu ku dadaalay inuu kobta gaarsiiyo wiilkii ay ka dhacday intuu awoodi karay. Daawade, muuqaalkan dadka kale gaarsii si ay darsi uga qaataan akhlaaqda wanaagsan.